hay-adda SYBD oo ka mid ah hay'adaha samafalka ee howlgala gobolka Hiiraan ayaa dadaal dheer kadib ku guuleysatay dib u howlgelinta saddex ceelbiyood oo ku yaala deegaanada Qabno, Qodqod iyo Cawmaad oo ka mid ah deegaanada hoosaga degmada Matubaan ee gobolka Hiiraan isla markaana ku kala yaala bariga iyo koonfurta degmadaasi kuwaas oo ah deegaano dhammaantood ay degan yihiin dad reer guura ama xoolo dhaqato ah muddo dheerna cillado kala duwan uga dansanaayeen matooradii ceelashaasi biyaha ka soo saari jiray ceelashaani ay dib u howlgelisay hay-adda SYBD ayaa u dansanaa qaarkood muddo 8 bilood ah bamka ceelashaasi biyaha ka soo saaray iyo cillado kale isla markaana sababtay in bulshada deegaanadaasi qaarkood biyo la'aan awgeed horey uga guuraan deegaanada qaar maadaama dadku ay yihiin xoolo dhaqato ayna awoodi waayeen inay soo iibsadaan bamka biyaha ceelashaasi ka soo saaray iyo cilladaha kale ay u baahan yihiin matooradan hay-addu maanta ay ku guulaysatay dib u howlgelintooda waxaana madaxda hay-adda SYBD ay ku wareejisay maamulada deegaanadaasi iyo waxgaradka intaba agabka loogu talagalay ceelashaasi ay ka mid yihiin bamka biyaha ka soo saaray ceelasha olyo iyo shidaalka ay ku shaqeeyaan matoorada maanta hay-addu dib u howlgelisay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo guddoomiyaasha deegaanada Qodqod, Cawmaad iyo Qabno oo wadajir si kooban uga hadlay baahiyaha ku gadaama nolosha bulshada deegaanadaasi iyo waxyaabaha kale ay u baahan yihiin matoorada maanta hay-addu ay dib u howlgelisay ayaa u mahad celiyey hay-adda SYBD sida wanaagsan ay uga soo jawaabtay baahiyaha bulsho ahaan ay horey ugu gudbiyeen kuwoodii ugu weynaa ay ka soo jawaabtay hay-adda SYBD hay-adaha kale iyo dadka muxsiniinta ahna ka codsaday in sida hay-adda SYBD ay wax uga qabtaan baahiyaha aasaasiga u ah nolosha bulshada deegaanadaasi xilligan ay u baahan yihiin hay-adda SYBDna sheegay in marnaba aysan ilaawi doonin doorka ay ka qaadatay caawinta bulshada deegaanadaasi aniga Cabdisalaad Gaabow ah oo ah guddoomiyaha tuulada Qabno halkan waxaan uga mahad celinayaa hay-adda liraa SYBD oo maanta noogu timid tuulada Qabno hay-addaasoo ceelka Qabno noogu timid oo deeqdaanad u jeedino 5 fuusto shidaala iyo bamkaas noo keentay iyo kaartoonka olyada hay-addaas khayr Allah sidaan leeyahay SYBD waa u mahad celinaynaa maanta ceelka Qabno wacyigiisa iyo waqtigu soo maray iyo intuu fadhiyay waa la xasuusin yahan u malaynayaa hay'ado badan waa noo yimaadeen hay-addii ugu horeysay oo maanta na soo gaarsiisay SYBD shidaalkaas ay u jeedaan oo 6 fuusto shidaalka iyo kaartoonkaas olyada iyo bamka noo keentay SYBD waa u mahad celinaynaa ceelkan baahidiisa ilaahay baa soo koobi karo ceelkan wuxuu u baahan yahay dirbi wareega wuxuu u baahan yahay caafimaadkiisa koobaad u ah oo cilladaha ceelka ku imaan ah inuu soolar helo soolar uma haysano dirbi wareeg uma haysano guriga halkaas qolaan u haysanaa gurilaan waaye dekadaha ariga iyo geel ku cabaan uma nooma leh oo labada xabo macbilka uu noo leeyahay waxaan u baahannahay dekado guriyo soolar dirbi waxaan u baahannahay baahida ceelka oo dhan intay qusayso celina SYBD waa mahad celinaynaa ceelka Qabnood muddo dansanay 8 bilood waa ka soo sheekay taruuftii muddada uu fadhiyay maanta bamka inoo keenan uu ku shaqeeyo haya marka aadan ugu mahad celinaynaa aydan marka SYBD waa mahad celinaynaa oo qoladii koobaad noo timid maanta ayadana waxaan ka rabnaa baahida dhiman noo keentay iyo hay'adaha kale oo caalamka maqalkeena iyo muuqaalkeena ka arkay ahaba ee waxna loo ka qabto ceelka muddo 8 bilood waa laga dansanay way noo kacday hay'adaas SYBD waa u mahad celinaynaa xagga oo maaragtaa tuulada waxbarashadu iskool ma leh caafimaad ma leh xanaanaha xoolaha ma leh ilaa xoolaha jooga waddanka intaasba ma haysano maantana hay-addaas SYBD ayaana soo gaarsiiday intaasan caanay waxay keeneenna wax ku dari mayno waxna ka dhimi mayno baahi badanna waa qabnaa baahidaasna waa sheegnay intii u badan waa Cabdullaahi Xirsi Indhoy ahna guddoomiyaha degmada Qodqod waxaan u mahad celinaynaa hay-adda SYBD ayaan u mahad celinaynaa waxaan ugu mahad celinaynaa daan nahay dadka Qodqod
waxyaabo badan oo adiga dhibaato ah oo baahiyaha jiray sida ceelkoo kale ama deegaanka ceelka baahidii ka jirta qayb ka mid a oo ay nagu sii caawinayaan ay noo keeneen waxay noo keeneen bamba shidaal waa uga mahad celinaynaa olyo waa uga mahad celinaynaa waxaan u gudbinnay baahiyo badan oo ceelka qusaynaya haddii allaha wadalihi ogolaada waa ka sugaynaa sidii aan ugu gudbinnaan uga sugaynaa waxaa kaloo jiro deegaanka ka jira baahiyo fara badan ilaahay weynoo waaxid ahaa dabooli kara ama baahidaa tirin kara laakiin ka bini aadamnimada xagga caafimaadkoo kale xagga waxbarashadoo kale waxaan uga baahannahay inay naga saacidaan hay-addu ayaan u baahannahay waa soo dhowaynaynaa hay-adda waa u mahad celinaynaa waa mahadsan yihiin annaga waxaan ka codsanaynaa baahida aan u gudbinno hore ugu gudbinno ceelka qusaynaysa iyo midda hadda aan ku darayno deegaanka ka jirta intaba waxay naga saacidi karaan inay naga saacidaan aan ka codsanaynaa aniga ah cabdullaahi cabdinaaleeye odayaasha dhaqanka meesha noqod waxaan u mahad celinayaa in hay-adda SYBD oo noo keentay mataqaanaa adduunka waxaa la yidhi inta la cuno waxaa ugu horeyda biyo mar haddaan baahi biyood qabnay bambada nagu xumayd ama aanan mataqaanaa xataa shidaal annagu aan isku qarash garayna aanan haynin ee aan codsannay ee ay noo keeneen wixii ay naga saacidi karaan haddii sidaasaan ugu mahad celinaynaa waa soo dhowaynaynaa baahiyaheenna kaloo faraha badanna guddoomiyahaaba ka hadlay ceelkan deegaan ahaan in badanoo qodnaay waxaan isleeyahay hadda taariikh ahaan markii la yidhaahdo 85 ayaa la qoday 30 iyo dhowr sana ka soo gudubtay intaasaa meesha mataqaanaa aan ku noolayn oo degmo la degan yahay ahayd ceelkuna shaqaynayo hadba ceel aan soo mari jirnay alxamdulilaahi rabbil caalamiin magacaygu waa Cumar Cismaan Cabdulle anigoo ku hadlaya afka deegaanka Coomadeed bulshada qaybaheeda kala duwan ilaahay baa mahad iyo abaal leh waxaan u mahad celinayaa hay-adda SYBD aan u mahad celinayaa waxa ay noo keentana waan uga mahad celinaynaa waa mahadsantiin baan leenahay shidaalka iyo dayactirka kale oo olyada iyo ay ka mid yihiin oo noo keeneen waa uga mahad celinaynaa waana uga ducaynaynaa mahad celin kadib waxaan u gudbayaa baahida ka jirto deegaanka Coomadeed baahidaas waxaan u gudbinaynaa hay-adda hadda nala joogta SYBD iyo dadka kala ummadaha kale oo ama ajnabiga ama muslimiinta ganacsatada waxgaradka ciddii saacidi karta deegaankaas oo dhan ayaan u sheegaynaa inay aan baahidaas u sheegaynaa baahidaas waxaa ka mid ah matoorka Coomadeed oo matoor deegaan baaxad weyn ay ilaahay baa nolol leh ay ku nool yihiin biraha ku jira xilligii in laga bedelo loogu talagalay waxa raacday 2 sano iyo 6 bilood markii ugu dambeysay biyaha oo laga cabaayeen isbedel in birihii halaabeen aan ka dareenay biyihiisa baahida labaad haddii biyo ka yimaadeen biyaha gacmaha loo dhiga ma meeshii lagu cabi lahaay oo waasaskii wax jajabay iyo wax duleeshaday ay noqdeen midda saddexaad ceelku waa dheer yahay mitirkiisu sidaas awgeed shidaalkii matoorkii waana anfici waayey waxaan codsanaynaa in aan helno solar marka hore anoo guddoomiye Coomadeed ah Maxamed Cali Kaliil waxaan ka hadlayaa wixii baahi oo kama dambays ah wixii hore ninka odaga ah oo deegaanka ka hadlay dadka deegaanka ku nool horta waa dad 800 oo qoys ah dadka 800 oo qoys sida uu ninkaas oo u sheegay waxa waayeen wax alla wax uu sheegay u baahan yahay waxaan ka rabnaa marka dadka ganacsatada dadka hay'adaha caalamiga wax walba in nagala soo gaaraan intaas oo baahiya isgoolku waa isgool dhaxo hooso si dabar rucaadahan
aan maaragtaa ii sheegaan wax ugu qabanaa macallimiinta annagaa marmar wax u goobno waa nagu muctaadeen oo macnaha dhibaato badan ay kala kulmeen ciyaalka dhigtaa waa 250 canug ah dhigata marka xagga waxbarashada xagga xanaalaha xoolaha xigta xagga ii sheeg caafimaadka xigta 35 kilomitir meel u jirta qofka xanuusta aanu qaadna waxaan rabnaa dadka jaariyadaha dadka ganacsadaha dadka hay'adaha caalamiga ah wax walba wax ay noo qaban karaan caamadda inay qabtaan dadkaas kunka qoys wax yar ka dhiman aana ku nool deegaankaas dadkaas deegaankaas ku nool cidday wax u qabanayso oo islaamnimo wax ugu qabani oo hay'ad wax ugu qabani oo dhan kasta wax ugu qabani waxaan codsi u nahay inay wax noogu qabtaan SYBD waxay noo keentay shidaalkaas iyo ooliyadaas wax yaroo yactir ah haddana waa mahad celinaynaa waxaan rabnaa wixii ay noo qaban karto oo haddana ay nagu saacidi karto inay nagu saacido waxay noo keentana waa uga mahad celinay cabdirashiid aadan cabdulla oo ku magac dheer Jabbe waa madaxa hay'adda SYBD ee gobolka Hiiraan ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay waxyaabaha ay ka soo qabteen ceelasha deegaanadaasi ayaa sheegay in kormeer ay horey ugu sameeyeen deegaanadaasi ay soo arkeen bulshada deegaanadaas in cilado kala duwan uga dansan yihiin matooradii ceelashaasi biyaha ka soo saari jiray isla markaana dadku baahi weyn u qabaan in wax laga qabto arrimahaasi ayaa dadaal dheer oo qaatay muddo 3 maalmood kadib sheegay in maanta hay'adda SYBD ay ku guuleysatay dib u howlgelinta ceelbiyadii ku yilay deegaanadaasi waa kan madaxa hay'adda SYBD Cabdirashiid Jabbe oo ka warramaya arrimahaasi iyo waliba baahiyaha haysa bulshada deegaanadaasi ballan qaadayna in hay'adda SYBD mar walba u taagan tahay waa adeegida bulshada Soomaaliyeed intii karaankood ahna ay wax ka qaban doonaan baahiyaha kale ay ku soo arkeen deegaanadaasi fariin u diray hay'adaha kale iyo waliba dadka muxsiniinta ah annagoo hay'adda SYBD qabadkaas soo qabanay 3 tuulo oo kamid ah tuulooyinka Qabno Coomaad iyo Qodqod kadib markaan sarfay ku tagnay tuulooyinkaas 2 jeer camal aan isaga daba noqonay sarfay waxaan soo ogaanay baahidooda dhanka ceelasha ah waxa ka fadhiyay tuulooyinkaas dhammaan ceelashii ay ku biyo cabiyeen dad iyo duunyo iyo xoolaba ceelashaas baahidooda way kala duwaneed qaar waxay u baahnaayeen shidaal qaar bamkii ayaa ka haleysnaa 2 ceel oo kamid ah oo ceelka Coomaad iyo ceelka waxaan rabaa oo baalkii Qodqod iyo Qabno waxay u fadhiyeen bamka biyaha ka soo saaray ceelka mid kamid wuxuu fadhiyay 8 bilood kadib markaa aragnay baahidii iyo dadkii inay culays ku qabaan biyahaas ayaan waxaan u geynay bamkii waxaan u raacinay shidaalkii iyo motorkii wixii lagu bedelay olidii lagu bedelay motoradii meesha yaalay olii lagu bedelo iyo shidaalkii lagu shubi lahaa aad iyo aad ay ugu baahnaayeen baahidaas waan u soo kicinay si fiican ayay ugu baahnaayeen marka baahidaas baahi taagnay ahayd SYBD ayaa ku guuleysatay inay baahidaas wax ka qabato ilaahayna uu guuleysiyay 3 beri ayaan isaga daba noqonay maanta ayaan soo gabagabeynay waxaan ugu baaqayaa marka mar labaad iyo mar saddexaad dadkaas baahi badan fara badan ay qabaan dhan xoolo dhan bini'aadnimo annagana wixii ay noo soo qorteen codsi ah waxaan ka awoodi karnaa waa ka jawaabi doonaa insha Allah deegaanadaas dhamaantood waxay hoos tagaan degmada Matabaan deegaanada ceelashaas ay ku yaalaan oo ceelasho ah ceel borhol ah ama ceel riig dhamaantood waxay hoos tagaan degmada Matabaan marka waxaan rabaa inaan gudoomiyaha ku wareejiyo hadda Ilaahay raado iyo tiimka inta kale insha Allah taala gudoomiye kan waliid way kana bamki waaye waa ka gudoonaa shidaalkina waa kan kulli waa gudoonaa Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka caalamiga Soomaaliyeed degmada Matabaan